kulanti wacan daawadayaal kusoo dhawaada dhacdooyinka caalamka kuwada ugu waaweyn qodobadaad ku daawan doontaan waxaa kamid noqonaya weerar loogu qaaday iskuul ku yaala Philippines tirada dhibashada iyo dhaawaca sababay ka dambeeyay cid loo soo qabtay ayaa muuqaalka ku faaqidi doona waxaa sidoo kale muuqaalka inta daawanayso ku soo gudbin doona qarax xoogan oo ka dhacay xarunta gaaska dabiiciga ee Qatar sababihii ka dambeeyay qaraxaasi iyo wararkii u dambeeyay ee naga soo gaaraya ayaa muuqaalka ku soo gudbin doona kama marna wareegii koowaad ee wada hadaladii u dhaxeeyay Iran iyo Mareykanka oo soo gabagaboobay iyo heshiis hordhac ah oo laga gaaray qodobadaasi wixii kale nagu soo kordho ayaan ku soo gudbin doonaa halkaad naga daawanaysana waa telefishinka Himilo ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan aynu ku bilaabno wada hadaladii u dhaxeeyay Iran iyo Mareykanka ayaa soo dhamaaday wareegiisii koowaad iyadoo la gaaray heshiis hordhac ah wareegii ugu horeeyay ee wada hadalada heerka sare ee u dhaxeeyay Mareykanka iyo Iran ayaa lagu soo gabagabeeyay dalka Switzerland wafdiga Mareykanka ee wada hadalada ugu qayb galay waxa hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka dalka Mareykanka iyadoo sidoo kale wafdiga Iran uu hogaaminayay afhayeenka baarlamaanka ee dalka Iran labadan dhinac ayaa isku raacay qorshe kama dambeys ah oo 60 maalmood gudahooda ah sida ay sheegtay Iran wada xaajoodka waxa uu horseedaya horumar muhiim ah oo isugu jiraan ogolaansho la xiriira dhoofinta saliidda Iran iyo siideenta qayb kamid ah hantida Iran ee horey loo xanibay labada dhinac ayaa sidoo kale isku raacay in la dhiso guddi loo yaqaano deconfliction cell kaasi oo kormeeri doona xabad joojinta ka jirta Lebanon isla markaana gacan ka geysan doona yareynta xiisadaha gobolka wada hadaladan ay gaareen Iran iyo Mareykanka ayaa loo arkaa mid muhiim ah iyadoona lagu xoojinayo joojinta ama xiisada ka taagan bariga dhexe iyadoona kulamo farsamo oo dheeraad ah la qorsheynayo toddobaadka soo socda si loo sii ambaqaado heshiiska la doonayo in lagu dhameeyo 60 maalmood ee soo socda markaana hadii aan aadno dalka Philippines iskuul ku yaala halkaasi ayaa lagu qaaday weerar qorsheysan iyadoona halkaasi uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac wararka laga helayo dalka Philippines ayaa sheegaya in ugu yaraan 3 qof ay goobta ay ku geeriyoodeen iyadoona sidoo kale 5 kale uu soo gaaray dhaawacyo kala duwan kuwaas oo xilligan xaaladooda caafimaad lagu dabiibayo isbitaalada ku yaala gudaha dalkaasi Philippines booliska ayaa sheegay in weerarka uu ka dhacay dugsiga sare ee St. John's International High School waxaa sidoo kale saraakiishu ay xaqiijiyeen in hal qof gacanta lagu soo dhigay kaasi oo lagu tuhmayo inuu ka dambeeyay weerarkaasi iyadoona sidoo kale baadigoob loogu jiro shakhsi kale oo lagu tuhmayo in weerarkaasi uu garab uu ku siiyay mas'uuliyiinta dalka Philippines ayaa bilaabay baaritaano dheeraad ah oo la xiriira sababihii ka dambeeyay weerarkaasi inkastoo wali faahfaahin dheeraad ah aysan ka soo bixin wixii xogay macluumaad ee ku soo kordho qodobkani muuqaaladeena xiga ay idinku soo gudbin doonaa markana hadii aan ku soo gabagabayno qarax xoogan oo sababay khasaare kala duwan ayaa waxa uu ka dhacay xarunta gaaska dabiiciga ee dalka Qatar qaraxa kadib waxa xigay in goobta uu qabsaday dab aad u xoogan kaasi oo sababay khasaare hantiyadeed iyo mid nafeed intuba waxa sidoo kale wararku ay tilmaamayaan in qaraxa xoogiisa laga maqlay meel ka baxsan gudaha dalka Qatar wararka ayaa waxay tilmaamayaan in qaraxa uu dhacay xilli shaqaalaha ay wadeen dadaalo dib ay ugu bilaabayaan howlaha dhoofinta gaaska kadib markii muddo uu hakad uu ku yimid kaasi oo sababay xiisada ka taagan bariga dhexe ee u dhaxeeya Mareykanka Iran iyo sidoo kale Israa'iil xogaha kale aan helayno ayaa waxay tilmaamayaan in qaraxa ay ku dhaawacmeen ilaa 54 qof oo kamid ah shaqaalaha halka sidoo kale 18 kalena la leeyahay balse uu socdo baadigaab xoogan oo lagu raadinayo dadka wali la leeyahay dhacdadan ayaa walaac cusub ku abuurtay suuqyada tamarta caalamka maadaama Qatar ay kamid tahay dalalka ugu waaweyn ee soo saara gaaska dabiiciga ah wax soo saarka gaaska dabiiciga ayaa horey hakad ugu jiray tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhaxeeyay Mareykanka Israa'iil iyo sidoo kale Iran guud ahaan daawadayaal barnaamijka dhacdooyinka caalamka aad ka daawanayseen Himilo Somali TV waa naga inta barnaamijka mid lamid ah inta dib ku kulmi doono sida nabadgelyo aad ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkayaga